waxaan maanta meeshaan isugu keenay oo xafladan loo sameeyey waxa weeye waxa meesha yaala waxa Soomaalidu ku mahmaadaa meel hal lagu qalay mana hogan yara mana hilba yara baamidar cunadu iska yareyn maanta dadna ilmahan cunay kulay hala waa ka badnaayeen ari badan oo ahay hogan badan maqli mayn waayo horamay maamaadaas oo ahay dhibaatada meeshaan ka dhacday dadkoo dhan way dhaqantay dadkii reer Buntland ah dadka Soomaaliyeed oo dhan iyo beesha caalamkaba aad iyo aad bay u dhaqantay waxaan laga filayn bay ahayd marna maanta aan laga filayn meelahaas qabaa'ilku isku laalaayaan meeshaan sangay iyo waxaas meelo badan oo ka sii xunbaa jidhay oo hore la isku laayay oo Buntland ka mid ah kuwaasay kala mid tahay waana iska dami doontaa insha Allah taala hadaba waa la jiraa laakiin midaan halkaan magaaladan caasimada ugu dad badan deegaanka Buntland ugu dad badan halbowlihii dhaqaalaha ah dekedii guurtada ahayd oo badda cas ku tiilay badda Indian Ocean ka waqtiga badan tahay waxa yiri badxiran saacsan male ku tiilay lagu soo barwaaqoobay aan weligeed la xirin sidii loo dhisay iyo intay ahaan jirtay markii horeba meelaha natural bortiga oo doonyo iska soo xirtaan anigu waan imi waa joogay waagii bangiyada aan galay waan imi leeso bedelay 67 weligeed waxa ahayd meel wax ka soo degaan oo iyadoo waxba dhisnay bay ahayd haddana Soomaali inteeda kale aan kaga satroonanay iyadoo uga dhow khaliijka iyadoo berbera ugu dhow dekedaha Kismaayo iyo Xamar way ka fogaayeen xoolaha dhoofkooda waliba laakiin xoolo dhoof tan ugu fiicneed markasta iyo berberana xagga Sacuudiga wixii aadaya tanuna wixii khaliijka aadaya ku fiicnay marka meeshaas xabaday ka dhacday dadkoo dhan waa dhaqantay waxa ka sii dhaqashay badnaa qaxya la qaxay inaanu u soo gurmano Nairobi anagoo joogna oo anigu waxaan islahaa Nairobi xogaa waa dhulkan waa ka qaboobay iska sii joogay inta Xamar barlamaanadu soo dhamaanayaan waxaan soo kiciyay waa danqashadan ka danqanay waxaan jecelahay haddii alla idmo hadeer ilaa inta dadka aragnayna wax hadeer negative maana arag dadka haan maqashiye ismada waa la kulanay wuxuu dhinaca wanaagsan bay hadda u socdaan culimadii maanta aan aragnay iyagana oo deegaanka iyaga noogu yimaadeen waa aragnay ganacsatada qaar hal googo'aasa waa aragnay waxaan rajaynaynaa laba shay baa bani aadamku ku heshiiya warka dadka maamulka iyo marka laga sheekayo sidee wax loo xalliyaa dhibaato loo xalliyaa dhibaato iyada is xallisa oo ilaahay taa kama dhigo oo waxa la yiraahdaa conflict resolution ka waxa la yiraahdaa lose to lose laba khasaaro markii la isku agdhaco labadoo baan oo hoog iyo baa u dhaco wariya waxan adduunka la kala qabtaa mooy arida joogin markaas hadii la halka ka baxna halka ka baxna kala dira taas ilaahay kama rajaynayno waxaan rajaynaynaa mid aqligu taliyo oo la yiraahdo win afgaalada lagu yiraahdo qof walba isagoo lible ayaa meesha ka tagaya qofka lama eedeeyo marka wixii loo dambi leeyahay waa goonidiis laakiin adaa gardanaya hor lama soo hormariyo dasbaan bixinaya diraal laga hado dad badan baa dhageysanayeen waxa weeye waxa laga hadlaa mushkilada laga hadlaa ee dadka laga ma hadlo hadii mushkilada dadka laga hadlo lama heshiyo dhibaatada laga hadlaa dhibaatada dhacday dad bay ku dhacday ummadii oo dhan bay ku dhacday inta naxday oo ka naxday intay ku dhacday waa kala mid maxaa yeelay warmeeshi isla maalintii xabadu bilaabatay ay ama khilaafku bilaamay badeecadihii yiilay muxuu ahaayay inta boosaaso ay wax siin jiray ilaa Itoobiya ilaa gobolada dhexe Soomaaliya ilaa beledweyne ilaa balskada wixii Buntland badeecadooda qaaliyo waxa la yiri waxba ma soo socdaan dambe dooniyay ku xiray halka waa wareegeen dekada kale u wareegeen kuwii soo socday waa joogsadeen lacagii la xawilayay oo la soo xawilay waxa xagee bay aadi doonaan hadee waxaas inta leeg maanta inta halka joogta iyo inta ilaahay inuu ku daro oo magaalada degan culimada hadda qaar baa joogan ninkaas baanu ka doortay culimada magaciisa la ii sheeg niyo shirar walba oo intaas kale noo sheeg markii marba loo yeero ninkaas ya khayr Allah siiyo intuu isla soo helay ayado quraan iyo xadiis iyo aqliga ilaahay siiyo isku sheegay baa nagu filanba meelaha shirarka markii la hadlaayo oo muxuu ahaay heshiiska la sameyn doono hadii ilaahay idmo oo dawladii hatta wadwaaba ka joogtaa hadii cid ka badan ka weyn loo sii baxdo ninka marba loo yeero dadka hawaniye marka ilaahay saasan ka rajaynayna inuu muwaafaqo inuu waafajiyo dariiqa toosan ku hanuujiyo oo waxaan u nimi maslaxada oo ilaahay naga aqbalo anagana ajir naga siiyo
inta ay khusayso dhanna ay ka soo kabtaan inta la soo wada noqon baan u malaynayaa dadka hadeer badan baa kalsooni gashay inta aanu nimi annaga waxaa la siri kolley waxay wadaan muxuu ahaye calankii nabadday wadaan waa wadnaa calankii nabadda calanka Puntland waa ogtihiin 3 midab buu leeyahay midab waxa weeye buluuga oo Soomaaliya ka mid nahay weeye kan dhexo cadaanka ahna waa nabad marka Soomaaliya ka mid tahay nabad baan ku baaqnay Soomaaliya inta kale ee nabad ahaato nabaduna waxay ku jirtaa nidaamka federaalka oo la qaatay oo lagu kala dameeyo oo la sameeyo marka waa la kala tagay misla in la isku jiro waxna la kala haado bay macna seeta midabka cagaarka ahna waxaan ugu talagalnay oo aanu meesha u yahay adduunyada dhan waxa weeye nabad meel nabad dhiri ka baxda ana magaalada maxamed colaad bay iska samaysantaa geed kuma taal laakiin beeraha dhinacyada baa dhirta ku taala magaalada dhirta lagu beero ninka murshidada madaxka ma jooga meesha iyo kuwa kamid ah magaalada abaarta laga biyo dooxooyin hadda halkan meel ka baxayn mar hada dhirta waxa halka ku taala fiirsi dhirha lagu beero nabadaas baan ku baaqaynaa nabadaas aan wadnaa calankeena waa kii Soomaaliyeed oo hadda xamarna waxaan rajaynaynaa waxa ka soo baxay war xaqeer noqdo barwaaqadeena waa ku xigtaa ama hadeeranba ku jiray sida inuu ku soo noqoto insha Allah ta'ala waan isla heli doonaa geerarka isdhaafsan oo hadda aan moodid geeska baawrka markii wanka la geliyo maartay wax gaaraan inay isla helaano foorka iyo wanku isku mar wada gali karaa midba dhinac marka loo qaado saas Ilaahay ka rajaynaynaa waxaan rajaynaynaa markaas qadooyinku waa badbadan yihiin qadooyinka qaar dib hanoo ku dhigo oo markii aanu najaxno yaa hadhow nala ka matajin haddii wax naga xumaadaan hadhow marka qaar ha dib ha u hareeno markii aan najaxno marka had ari waa la qalaya geel iyo hal qalo meelahaas oo markaas iyo kalluun waaweyn tabadin iyo maxaa kii weynaayo qasacada la gelin jiray iyo markaas la keen marka intaas ku soo koobaya Ilaahay khaatumadeena khayr ha ka yeelo Ilaahay nabadgeliyaha ayna ku waariyo Ilaahay dhibaatada hadda jidhayna ka saaro Ilaahay qulubteena haysto